Waxa suuragal ah la kulanka xayawaan beriga ahi inuu noqdo arrin la yaab leh, haddana ah arrin fani ah. Sidaas daraaddeed ayay dadku waxay aadaan beerta lagu xanaaneeyo xayawaanka si ay u soo booqdaan. Sidaasay dadka qaarna waxay aadaan kaymaha iyo dooxooyinka safari, iyaga oo halkaa ka baadhaya xayawaano. Laakiin xilliyada qaar ayay xayawaanku waxay door bidaan inay dadka ku soo booqdaan dhulkooda, iyaga oo uga nasteexaynaya dhibkii ay ka mari lahaayeen soo raadintooda. Run ahaantii arrinkaasi waxa uu yahay arrin aan dhif iyo naadir ah, laakiin markaad u fiirsato waxyaabaha la sawiray ee kamaradu qabatay, waxaad arkaysaa in xayawaano kala duwani ay marar badan dadka u soo dhowaadeen, iyadoo aan dadku aanay weliba ogeyn. Arrintaasi oo ku sababtay dadka qaarkood inay wareeraan, dadku qaarkoodna ma awoodaan inay fasiraan sababta ay xayawaanadu u soo booqdeen. Yaxaas ku jira barkadda dabaasha ee guri ku yaala. Dadku badanaa waxay sameeyaan barkadaha waxay u samaystaan guryahooda dhexdiisa si ay ugu dabaashaan, ay qorraxdana isugu dhigaan dul fadhiisadkeeda. Ka waran haddii barkadaada aad ku aragto yaxaas weyn oo dhex fadhiya. Arrintaasi waxa ay ka dhacday magaalada South Carolina ee Mareykanka. Gabadh ayaa waxay gurigeeda ku aragtay barkadda ugu taala ee dabaasha yaxaas weyn. Arrintaasi oo ka dhigtay inay la hadasho ciidanka, kuwaasi oo iyagana doorkooda la hadlay nimanka koriya yaxaasyada. Halkaasi oo yaxaaskii lagu qabtay markii u dambeysay. Yaxaaskani ma ahayn mid jidhkiisu aad u weynaaday. Waxa ay tahay inuu ka soo galay guriga dhinaca kaynta, isaga oo ka yimi dhankaasi kana soo galay dhanka barkadda. Maroodi ayaa waxa uu soo galay hotel. Maroodigu waa xayawaan dhif iyo naadir ah oo dadku aanay badanaa arag. Keliya waxaa lagu arkaa beerta xayawaanada. Laakiin sanadkii 2013 waxa ay la yaabeen shaqaalaha hoteelka Yala ee ku yaala Thailand maroodi weyn oo ka soo galay albaabka hoteelka, kaasoo gudagalay inuu ku dhex wareego albaabkada dhexdeeda. Halkaasi aan qofna ku dhicin inuu ka hortago maroodiga aadka u weyn ee duulaanka ah. Waxayna ku kaaftoomeen inay ka leexdaan. Maroodiguna mar walba wax alla wixii ka hor yimaada lugta ayuu saaray. Maroodigani sida muuqata wuxuu jaanis ka helay hoteelka oo ku yaala meel kayna oo ka fog dadka. Markaasi oo uu weeraray isagoo aan cidina ka haysan wax digniina. Madax ku tigan waxaa lagu arkay kabadh ku yaala guri ku yaala tuulada Montana ee Mareykanka. Tuulada Montana oo lagu yaqaano inay joogaan tiro aad u fara badan oo ah madax ku tiyaal. Cilmi ururin la sameeyay waxaa la ogaaday in ka badan 300,000 oo nooca madax ku tiyada madowga inay ku nool yihiin tuulada Montana ee dalka Mareykanka. Arrintaasi oo ka dhigtay in ay madax ku tidu u soo dhowaadaan dadka, mararka qaarna ay waxyeelaan. Markii uu isku dayay ninkani inuu gurigiisa galo oo uu furo kabadhka qolkiisa ku yaala, isaga oo ka soo laabtay shaqada, waxa uu ka naxay markii uu arkay madax ku tiyar oo ku jira kabadhka. Intaasi oo ku abuurtay argagax hor leh. Waxa uu gudagalay ninkan shaqaalaha ahi inuu markiiba albaabka furo, kabadhkana furo. Halkaasi oo ay ku qaadatay saacad inuu ku sugo madax ku tiyu si uu guriga uga baxo. Tanino Komodo waa mid ka mid ah xayawaanada beerka ku gurguurta ee khatarta ah. Waxaa lagu arkay isaga oo ku jira musqusha ku taala guriga. Mark McWayne oo ku nool waddanka Australia. Sida muuqata, Tanino Komodo guriga waxa uu ka soo galay albaabka oo furan, isaga oo doonaya oo baadhaya biyo. Guriga ayuuna baadhay dhammaantiisa ilaa aakhirka uu ku gabagaboobay musqusha. Ninkan shaqaalaha ahi waxa uu codsaday dad ka mid ah kuwa dhaqaaleeya beer ku socotada ama xayawaanka loo yaqaano xamaaratada ay uga saaraan gurigiisa. Waayo haddii uu u dhowaado xayawaankan Tanino Komodo ee khatarta ah, waxa uu gelinayaa naftiisa halis. Yaxaas madow oo ku jira kusheanka guriga. Weligaa daawada miyaad ku riyootay inaad madbaxa ka helayso yaxaas madow oo ku dhex fadhiya weliba xilli habeena?
Gabadh Florida ku nool oo Maraykan ah ayaa waxay aragtay xilli dambe oo habeenkii ah yaxaas 3 mitir le'eg oo gurigeeda madbaxa u fadhiya. Markaasi oo gabadhu ay doonaysay inay gasho madbaxa, yaxaasku afka ayuu kala qaaday waxaana uu isku dayay inuu weeraro haweeneyda. Laakiin haweeneyda ayaa markiiba carartay, ninkeedana u warantay. Labadan lamaanaha ayaa markiiba guriga ka cararay waxaana la hadleen ragga degdega ah ee booliiska. Yaxaaskan oo ahaa yaxaaska ugu khatarsan ayaa waxa uu burburiyay alaabtii taalay guriga, waxaana uu muujiyay wax iska caabin aad u weyn. Markii uu isku dayay ninkii ciidanka degdega ahaa inuu ka soo saaro guriga, waqti ay howlgal aad u adag galeen, nimankii waxa ay ku guuleysteen inay afka ka xidhaan oo ay qaadaan. Mid ka mid ah doofaar dibadeedada aadka u halista ah oo uu ninkani ku arkay gadaashiisa. Dabcan mar walba doofaar dibadeedku waxa uu ka fogaadaa inuu la macaamilo dadka ama ku soo dhawaado. Doofaar dibadeedku mar alla markuu arko qof u soo dhawaaday waa uu cararaa. Doofaar dibadeedkani laakiin arrintaasi waa uu ka baxay oo xeerka waa uu jabiyay. Halkii lagu arkay guri qaybta dambe ee bannaan guri ku yaala Hawaii, doofaarkan oo awoodi waayay inuu ka baxo markii dambe. Markii uu toosay ninka guriga iska lihi, waxa uu arkay doofaar ku xidhan deyrka dambe ee guriga oo ka bixi kari waayay. Ninka ayaa gudagalay inuu deyrka ka furo albaabkiisa si uu ugu caawiyo doofaarku inuu ka baxo halkaa. Xayawaanka raccoon waa xayawaan khatar ah oo weliba badiyaa dadka la dagaalama. Soomaaliga waxa uu ugu soo dhow yahay xayawaanka xoorka la yiraahdo, wuuna la dabeecad yahay. Sida fiidiyowgan ka soo socotay aad ku arki doontaan, waxaa la arkay xayawaankan oo fadhiya daaqadda gurigan. Raccoon waxaa aragtay kaamirada habeenkii wax ilaalisa isaga oo koraya guriga. Raccoon waxaa la arkay isaga oo guriga koraya. Dabcan waxaa la arkay isaga oo gaadhay dabaqa 15aad, waxaana uu ku sugnaaday inuu fadhiyo halkaa. Raccoon oo ka soo cararay beerta xayawaanada ayaa subaxii waxa uu koray guriga, isaga oo markaa ay daawanayaan dad fara badani. Markii uu gaadhay saqafka ugu sarreeya ee cimaarada ama dabaqa, waxa uu arkay nin sugayay halkaa ku sugayay, waxaana uu ku dhex dhacay qafas. Ninkan ayaana ku celiyay beertii. Koala waa xayawaan ku baahsan Australia oo aad u la yaab leh. Waxaa lagu arkay isaga oo baabuur dhex fadhiya. Sidiisabana waa xayawaan wanaagsan oo weliba dad la dhaqan leh. Nin ayaa waxa uu joojiyay gaarigiisii meel ah kayn, taasoo ka kooban xayawaano fara badan oo koala ah. Waa uu ka degay baabuurkii, in yar ayuuna waxa uu gudagalay inuu kaynta soo dhex marmaro. Markii uu gaariga ku soo laabtayna waxa uu ka helay xayawaanka koala la yiraahdo oo gaariga dhex fadhiya. Sida muuqata xayawaankani koala gaariga waxa uu ka soo galay daaqadda. Ninka ayaa la yaabay wixii uu arkay in badan oo ka mid ah. Ninkan ayaa xayawaanka uga leexday inuu ku boodboodo kuraasta gaarigiisa. Sidaas oo ay tahay haddana biyo ayuu siiyay muddo 10 daqiiqana gacantiisa ayuu kula ciyaarayay. Markaas kadib ayuu albaabka ka furay si uu xayawaanka koala ugu laabto kayntiisii. Libaax buureedka khatarta ah oo laga helay guri isaga oo qaybta dambe ka soo galaya. Sida caadada ah, dadku waxay helaan mar walba xayawaano la degan oo ah dad la joog. Guryahooda xaggooda dambe ayayna badiyaa joogaan, sida shimbiraha iyo eyda iyo bisadaha oo kale. Laakiin inaad aragtid libaax buureedka khatarta ah, arrintaasi waxay keenaysaa cabsi weyn. Weliba si gaar ah xayawaankani aad ayuu ugu yar yahay dunida. Kamarad la suray guri ku yaala magaalada Colorado ee waddanka Maraykanka ayaa waxay qabatay 4 libaax buureed oo khatar ah, kuwaasi oo warwareegaya guriga qaybtiisa dambe. Ninkan ayaa guriga kamarada ugu xidhay si uu xayawaanka beriga uga daawado halkaa, kuwaasi oo soo mara mar walba gurigiisa harqodaalkiisa. Laakiin xilligan ayuu wuxuu ku arkay gurigiisa 4 libaax buureed ah oo weliba naadirna ah, khatarna ah.
Mid kalena waxaa lagu arkay isagoo maraya guri hortiisa ku yaala California, isagoo oo kaynta ka soo degay. Xayawaankan oo u muuqda inuu isku dayay inuu guriga weeraro ayaa awoodi waayay arrintaasi. Markaa kadib xayawaankan ayaa kaynta ku laabtay. Waa fiidiyoo kale oo ku darsi ah. Marmarka qaar barnaamijyada la soo duubo ee aad ka daawataan telefishinada waxaa ka soo qayb gala xayawaanada qaar, kuwa weliba dad la jooga ah. Soo muuqashadeeda barnaamijyadaasina waxa ay keenaan inta badan firfircooni iyo in barnaamijka aan laga xiisa jabin. Xilli uu Mark Tomayo sheegayay saadaasha hawada oo weliba si gaar ah ku ah magaalada San Francisco, waxaa markiiba ka soo muuqday kaamirada wejiga shimbir, kaasi oo salaan uu u diray, taasi oo ka dhigtay ninkii duubayay barnaamijka inuu ka gudoomo salaanta isaga oo qoslaya.